السلام عليكم قرابو كسو دواada videogan aan cusub maanta waxaan ka hadli doonaa casharadii ilaa hadda aan soo dhigano 1 ilaa 5 oo ah in nagu filan aan ku sameyn karno falanqeyn guud. Okay, waxaan sameynayna from monthly to 15 minutes inkastoo 15 minutes aan waxyaalo dheeraad jira u baahan doono markii aan intee karaadsanayno liquidity waxaas ah, laakiin for now falanqeyn guud baan sameynayna insha Allah. waxaan ka bilaabaynaa monthly, waxaan ku geenaynaa 15 minutes monthly marka tan aan hadda haysto euro US dollar waa euro US dollar forex.com. marka data dheeraad ah ma qabaan inta la datadooda, laakiin euro US dollar Oanda ku qoran tahay samjid inta Oanda ku qoran tahay ayaa wuxuu haystaa data dheeraad ah samjid. So marka datada ku jirto waxa arkaysa inuu impulsive inta meelahan ka soo bilaabo samjid. So marka kan wuxuu noqon karaa pullback oo iyada xataa ma naqaan meeshu ka soo bilowday impulsive-ka. So this may not even be part of the 50%. Just like in haddaan datada ilaa inta u dhigo waxay leedahay waxa waaye 50% way ku jirtaa, laakiin who knows meeshu ka soo bilowday. So we just need this data hadartaan inaan ka kala ku darsano euro US dollar forex.com. So euro US dollar forex.com and waxaan rabaa euro US dollar oo forex.com inaan ku darsado datadii ahayd tii kale ii haysa damaandigiisa ama ogaado haddii loo soo dhaweeyo haddii kale iyo xaaladse tahay. So let's do like this. Datada waan hayaa, so on, so yes, zero 8 tan waxay ahayd 7 kadibna euro. Let's see. Okay, so demanding waa kana oo aan ka heli lahayn. Marka hadda falanqeynteena gelina guud ahaan maadaama aan ognahay inuu meeshan suuqa ka yimid, waxaan inta ku xisaabayaa as a choke reversal oo impulsivity ilaa inta maadaama aan gelina lower time frame impulsivity way isbedelayaan iyo jihadooda. Okay, so maxaa dhacay marka maanta markaan meeshan joogno? waxaan fiirinaynaa higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, and then cash coin. So higher low ugu dambeeyay ani wuxuu noqon karaa kan ama kan, waxay ku xiran tahay how deep you want it to be. And let's say kulligood waxay ku wada jiraan jog waa wada sameeyay, soo ma jeedin? Xataa hadda kan u dhigtay jog way sameeyaan, hadda kan u dhigtay jog way sameeyaan. So it's up to you iyo waxaad ka heshid. Let's put it here, it doesn't matter. Okay, so monthly jog ma qabnaa maya. Okay, shock. Okay, yeah, monthly check baan dhacay. kadib maxay sameeyay lacagta way noqotay, waxay soo doonatay inay u soo noqoto hore blogan isku qaadanayna inay ku soo noqoto inta and then ay soo dhacdo. Okay, so maxaa dhacay markii kan markuu noqonayaa impossible cusub oo pullback, right? So waxaan dhigaynaa halkeenii 50% iga. I want it to be a little bit, yeah, this is strong. It's okay. Okay, so maxaa dhahay 50% igu soo galay, kaasuu soo qaatay, wuu soo dhacay, waxaa dhacay boos cusub literally maxaa dhahay
boos cusub and then suuq soo dhaxdana wuu noqday impulsive-kii cusbaa impulsive-kii cusbaa dan lacagta oo blogana doonatay oo blogya soo qaatay. By the way, waa supply kana supply GTF high time frame so soo dhacday iyadana tan way noqotay. Tan way soo dhacday. It was not strong enough in it jabiso demandigan. Laakiin maxaa waaye high cusub sameysmay. High-gaas ayaa jabiyay. So waxaan dhigi karnaa waa hal down train. Okay? oo wada jabinaya. Marka dadka maxay sameeyaan? For example, kan impulsive-keega weeyaan soo maaha. So wuu noqday ilaa inta waa fiicannahay mid cusub inta ka soo saaray. Kan ma uusan jabinin soo ma dhihi karay kan waa new boss. Maxaa dhacay laakiin ilaa intaan dhigi karaa, right? Wallahi waliba kan ku aadin karaa. Okay? dadka marka maxay sameeyaan? Dadka qaarkood waxay kaliya u dhigaan premium discount-ka lugtu wax jabisay. dadka qaarna waxay u dhigaan the whole trend, down trend, up trend, okay? So oo pullback markii laga soo noqdo impulsive-ka dhan isku darayaan. Hatta hadduu gudihiisa ku dhex jiraan lower high lower low, okay? So it's up to you iyo backtesting ka samaysid. Aniga lately waa isku dhex daraa. So waxaan ka pullback meesha ugu koraysan ka bilaabaa. Okay. So inta inoo dhig, okay? marka suuqa markuu saan sameeyay maxaa dhacday? Marka waxaan dhawaxay waa hal impulsive. Booska marka intuu ka dhacay, booska wuxuu ka dhacayaa from this maybe haduu jira in 2 months ama 3 months chart wuxuu noqon lahaa kaas uu weyn yahay. So boos cusub baa dhacay, lacagtii way noqotay. Intee ku noqotay? 50% gaan hadda u jeedid waxa ku ka buuxo salto buy badan oo order blogyo oo maanta inuu wali weekly hadaan tagno waan arkaynaa soo ma jeedin meesha order blog ku dhex jiro. So monthly inuu wali marka intaas isku qabanayna by monthly waa hal candle. So candle-kaas dhan isku qabanaya. So ma jeedin uu soo taabtay uu soo dhacay. Kan wax ma jabiyay? No, ma uusan jabin, right? So ilaa ay haddo demandiganeetu is holding. Demandiganeetu is holding. Oo ah okay. Demandiganeetu high time frame is still holding. Okay? So macnaheedu maxaa waaye taas? Markii uu push gareeyay buy ma uusan jabinin. Right? ma uusan jabinin. So marka hadda inuu jabiya laga yaabaa uu demandigan tago oo saasna uu suuqa ku socdo waayo suuqa soo jeedaan impulsive pullback impulsive kale inuu dhaco and then maybe lacagta first buy ada ma say ku sii socoto salkeen. That's another story. Madama data badan haysanin from that point I don't know meeshan ka base gareenayo waayo data kale ma leh. So igrada hada maanta driskan ma xameelan isdhisaya. So hadda marka xaaladaan ku jirnaa ani marka maxaan sugayaa kan waxa demand ugu dambeeyay and then there is this demand, right? Demand with supply, sorry wasku qasama qarakada this supply, right? oo supply-gii ugu dambeeyay suuqa marka waa inuu labadan meel mid jabiyaa soma. So range baan ku dhex jirnaa soo jeedin range-gan waa inuu kor u jabiyo ama hoos u jabiyo. Mostly hoos u badan tahay laakiin we will see. Annaga suuqa the difference between smart money iyo market structure-kii hore aan ku shaqeysan jiray waxa weeye market structure you predict the market. Inta like you don't predict, you just react to suuqa wuxuu ku siiyo. Okay? So we will see marka wuxuu يهبكو دقم هدول لوغان يجبي يعني محل اوكي لو ولا جبيه so we will محل بالباقي انه مركز يسو سمي اما وجه هذا بدش هديك لنا وانت لقى سو بوش كرايو laga yaab in inta xataa laga soo bushkaray waayo inta waxa ku jira investment so markaas amal is a way sameeyaan laakiin meeshan already we will see way u badan tahay ni waxa isleeyahay u badan tahay lower low inuu sameysmo monthly weekly wuu sameysmay so inuu sameysmo so intaan hadda aan falanqeynay ayaan isku soo wada qabanayaa
waxaan tagayaa object 3 markaan tago waxaan dhan soo ma jeedin folder aan u furayaa waxaan ku qorayaa monthly muxuu ii tarayaa monthly ma falanqeynayo mar kale ilaa supply and demand oo monthly la tago hadda waa la joogaa of course hadda waxay maraysaa meel oo demand oo monthly la jooga laakiin mar walba ma la joog intaan ku jirnay ma la joogin inta lagu jiro ma la joogin so it takes years to get from demand and supply or monthly literally so laakiin xaaladdan waxaan ku jirnaa oo meeshaas la jooga marka waa arki doonaa insha Allah tacaala marka kan hadda monthlyga waa xirayaa waxaan furayaa waxaan tagaynaa weekly time frame marka ma rabina waqti badan ku dhumiyo waxaan sameynaynaa directly inta ugu dambeyso baan falanqeynaya okay so impulsive kana soo dhaca pullback kan impulsive sorry intaan sameynayna so marka maxaa dhacay suuqa wuxuu soo sameeyay demandiganeeto supplyganeeto sorry ayaa soo push gareeyay so markuu soo push gareeyay impulsive-ka intuu u dhacay salkan uu soo dhacay marka intaasan taas dhicin aan ka bilaabno soo waxa meesha u kala noqdeen so inta waxaa ka dhacay choke oo weekly ah soo noqotay lacagtii way push gareysay so demandigan soo qaadatay demandigaas soo qaadatay just si bubsiisa u sheegaya demandigaas soo qaadatay way push gareysay so this was an impulsive like impulsive ku ahaa weekly impulsive ah laakiin monthly pullback okay from here to here okay so lacagtu way soo noqotay pullback soo sameysay intee ku soo sameysay demandigan ku soo sameysay markay ku soo sameysay pullback demandigan maxaa dhacay hadana waxay sameysay shock cusub this is actually very complicated because waagii coronavirus so suuqa it was not supposed to do this laakiin waxba labada qas and I don't even know where the choke starts or not maxay sameysay hadana suuqa uu soo baxay awood ma uusan u yeelan uu ku jabiyo high in this case high waa la jabiyay oo macnaheedu waxa waaye supply-ga waa weak ama high-ga waa weak demandigan strong control-ku ka high laakiin inta uu jabin waayo macnaheedu waxa waaye demandigan is strong taas maxay keentay suuqa inuu pullback sameeyo it still can be maadaama aanan la tegin meeshaanito demandigaas in demandigan markuu imaado oo dan ay noqoto clear inducement wax dhaco intaan order block saxda ah la tegin ayaa inducement laga soo push gareynaa waa liquidity dana raadun soo qarnarsado oo markaas ka bacdina maxaa la dhahay buy loo diro way dhici kartaa inuu loo wajibiyo we don't know we will see insha Allah taala marka inta maxaa markay noo muuqda waxaa noo muuqda suuqan in aanu sugaynin damaankaanito oo dhinac loo dhaco okay supply-gaanito is holding lama maxaa la break gareynin and demandiganeeto waa la jabiyay ma waxa loo socdaa lower or no that's another story so marka hadda intaas ayay noo joogtaa sheekada waxaan dhanaa soo qabanaa oo wait okay waxaan dhanaa soo qabanaa waxaan ka dhigaa iyagana weekly kadib waxaan tagaynaa dailyga maadaama ayna waqtiga boobsi intaan dambe leen ka dhigaynaa mubaahin xasla inaan falanqeyno maybe weekly ku dayn karaa suuqa muxuu dhacay wuu soo baxay wuxuu sameeyay boss meelahan choke intuu ka soo dhacay already waa ujeedaan so kan waa boss this is a boss suuqa dhacay wuu noqday intuu ka soo qaatay order block-aan uu soo qaatay supply-gaan intuu soo qaatay daily inaa haysta okay so haddana waxaa dhacay boss cusub right boss cusub inta ka dhacay haddana way lacagtii way soo noqotay
damaandigaaniti qaadatay haddana lacagta way dhacday waxay samaysay boos cusub booskanito laguma soo noqonin booskanito oo inta okay ay shaqeynaya doesn't matter booskan cusub waa dhacay laguma soo noqonin exactly because mararkaanita qaarkood waxa uu booska dhaco ciyow dhaco oo uu qaybta wax jibisa dheer tahay adkaata in lagu soo noqdo waxaan dhan waxaa laga inuu yahay impulsive oo weekly ah inuu yahay kelima haddaan ku noqono weekly waxaan dhan nagu celi inta yeah but it can be anyway marar qaarkood weekly nagu celi yes so waxaan dhan waa in yaroo iswadata intaan dhan just pullback yar leh laakiin in yaroo iswadata weeyaan soo majeed so flag yar ayay sameynaysaa markaas camal laakiin laguma soo noqonayo marka lagu soo noqon doono ama la durdurin doona that's another story okay so marka maxaa haddaa u dhigtid kan waa fahmaysaa marka se wax u jiraan markii kan haddaa u dhigtid aday markaas waxaa sameynaysaa inaad dhahdid okay demandiga oo 50% ku jira dhan ayaan sawirayaa waa supply-gaan ka wadaa sorry supply demandiga cidii kale lehedan raba inaan isku dhex qasin supply-gaas inuu igu soo noqdo right and kan midkaan ka kori laakiin hadda artaan waxaas dhan noqonayno and then waxaa dhacay a new boss yeah. A new boss sorry kan inta gay kan soo qabo inta kusoo dar haddana waxaa dhacay a new boss maanta dhan boosan ku jireynaa way diidayaa in boosyada ay soo jeedo a new boss waa lagu noqday order bloggan la soo qaatay haddana waxaa dhacay a new boss هذا ما سعره ميت كستو بريميوم ديسكاونت because هنا بوبسي الرابع وحال سوقات بلوغانيتو هذا نوع عند عبوس كان يريسكا فماشي أنا حالة دينا هذا مريسا right the last boss بركة بريميوم كنت لقى يعني بريميوم حال لقى from this point إلا انت نحن نسوي مركة إنه سوق نسون نقضه أو سوق قبضه first of all oo blogganid isku wada qabanayna waayo meesha waxaa ka hooseeyo kanito oo ah kii ugu dambeeyo bayga so waxaan dhan isku qabanayna okay inkastoo uu fududahay inuu week aado oo ama iyada dhamma liquidity noqoto oo kaas kor la doonto inta xataa mida ku jiro hadartaan so suuq hadda marka maxaan sugeynaa markii inuu pullback sameeyo meeshaas kusoo noqdo oo kabacdi sii socda waa day time frame ahaan okay so daygii markii intaasan haysanaa waan soo qabanaynaa waxaan dhan sidaan xire weekly okay daily okay kadib كان النوحر هذا واحد دقيقة مركب 4 hour حالدين كجنا انت قدام بس نسمينا to make it easy this is the last impulsive or order block and so قاعدته right this entire is weekly so قاعدته supply of 4 hour so maxaa dhacay marka wuu soo dhacay and then now we will see waxaan pullback miyaa mise impulsive hoos usii dhici doono we will see kana soo qabanayna ilaa intaa dhigana okay so hadda marka maxaan sugayaa aniga haddana inuu kusoo noqdo 50% gayga oo ah meeshan ama kuwaan kaloo ka koreeyo soo ma jeedid hadda isku qabano kan madow ayaan isku qaban karnaa oo here up to this down because waxaa ku jira laba inside bar and then we can take from here to this
yeah and so on. So saddexdaas order block inuu midkood ku soo noqdo kadibna aan meeshaas ka sii qaadano oo sal u sii qaadano ama se uu choke sameeyo we will see. So intaan hadda dambe marka choke 4 hour actually or maybe lower time frame inta uu ka dhaco soo jeedi waa just laakiin waa kan pull back sida ay leedahay ilaa kan la jabiyo ma dhihi karno kan markii la jabiyo dhihi karno okay now suuqa maybe saacadaha gudahooda wuxuu bedelnoo jahada. So choke inta ka dhacay lacagtu way baxday way soo noqotay kanay soo qaadatay this entire one ila ay korkaas waa laakiin just ila meesha laga taabtan geynina maadaama hadda u jeedno. And then waxaa dhacay boss weyn actually ma weyne waxaan ka wadaa laakiin waa range so ma jirto meesha wax lagu jiro. So kaneeto wuxuu tagay order block aneeto li range ku jirna ila range ka dhan say ku fahmaysan ugu jirtay markii high-gana la jibini oo premium discount-kaaga low-giisana la jibini then markaas waxa ku jirta range. So kan hadda soo taabtay uu soo dhacay it's not strong enough to make a boss uu noqday nadal uu soo dhacay ila hadda wajeedaan waa jibin ayaan meesha. So marka kan hadda ma aqaano tamam iska soo qabay taasna ma hadda waa hagaajisana let's say tamam no tamam let's say daily iska saaka yadik okay. So hadda marka waxaan sugan waxa waa suuqaneedu inuu maybe noqdo uu soo noqdo hadana sii noqdo we will see laakiin ama inuu hoos u jabiyo ama inuu kor u jabiyo right. Hadduu kor inta u jabiyo hadda uu kan jabiyo waxa waay boss kale ilaa 50% oo premium kale uu noqdo right inuu isoo ismo marka 15 minutes ka hadda tagayna intaan dhan noo soo qabo I hope ina fahantiin laakiin don't worry for qiimo oo soo dhigi doona si aad u fahantaan it's not difficult entry waa rabshada 15 minutes let's go to 15 minutes what the market is telling us. Okay. So 15 minutes well actually suuqan hada waan ku jira maxaa meeshan ka dhacay marka waxaa ka dhacay choke oo 15 minutes right intaan dambe la sameynayna isku wareerin intaas kale choke waxaa dhacay which one is the right one yes kalaan doorayso okay choke baa dhacay intuusan choke dhicin maba laakiin liquidity hadda ma rabin aan ku mashquulay laakiin liquidity la qaaday dhowr xaba ah waliba kan nadiif ilaa inta okay kadib maxaa dhacay choke markuu dhacay lacagtu way baxday kan inta ugu soo celi ilaa intaas ku eeg lacagtu way baxday demand supply-gaani taa soo push gareeyay soo ma jeedaan. There should always be a supply and demand lacag soo cesha ama sii cesha ama sii wada ama soo wada wax ka dhaxay mara. So order block aanito ayana jooga soo ma jeedaan taas inta maxay ka samaysay oo kale actually this is a lower time frame laakiin 15 minutes ma ka dhaxarti kartaa soo ma jeedaan jooga ana dhacay order block ana meesha yaalo so هذا بايع موجود لعكتن وهو ساعة I think this is my message start so مجدا أنا كجرا ويقولون ساعة because أنت كسر قاطي like I hope إني دخلته okay so مركل العكتن مركل محل سجايا كان وعندما بايع محل سجايا وإنا نقولك تا 15 minutes وإنه لقطة supply aan leeyahay aan soo taabanin wax soo ka hadli doona supply-yada sida iyo demand-yada saan u kala xisaabsado 4 hour xataa markii lagu dhex jiro waan ka doorto waxas dhan insha Allah waan intu si doona. So hada xaaladda saan waay marka falanqeynta dhan maxayna tusaysaa from monthly basis to
to 15 minute basis. So marka maalin kasta 15 minute ku isbedelaya. Maalin kasta 15 minute baa falanqeynaysaa. 4 hour ka every 2-3 days and supply and demand meelahaas lagu tagaya. So you have to know that too. And so every week adiga waa isbedel uu dhacaa at least 1 or twice. And monthly ga and daily ga maybe once a week or once every 2 weeks. I don't know what I either. Monthly ga and weekly ga probably once a month. I'm a couple of that sometimes 2 months we have current time. جهاز وين تاعي and so on. Can or actually monthly أنا السنة كي حاليا منو هالجرام بدي أحسس عنه. That it takes time. So 15 minutes كان مهمة صباح والباقي إنها فرنقية ستيت 4 hour كأجنا دوكو سوورينها إلا دمان أم supply لكن سو تابتو you don't need to do anything. إن شاء الله أنت سوف يكون هنا فيديو عن ويرا هذا لكن I hope إنها إلى فهمتين وحبذا. هذا كبعد إن شاء الله حنسكو ده يدونا week كذا إن نصور إيجو فلانقين أسبوع لها. So you know سوقا إلا 4 hour كمان شاء الله مرة 15 minutes it doesn't make sense إن weekends إن ستيت واي هبين كده مشقينا so صباح ذي في عنينا إن مرة قرقنا حسنا حتى هبينك سنو سميا وحنا سميا كلينا نقطة for example لعبتان وحين مريسا somewhere like here okay وحنا لعبت الله واحد يعكر إن نقطة demanding إيسو تابطة أمين هوس أدو supplying إيسو تابطة أمين هوس أدو demanding إيسو تابطة so demanding supplying بس نصورنا and then صباح دي كأولو ده هاي أي أركا كديمنا سيدا أنت لو رأسنا هاي في سنة something like that مرة قرقت واسميها to make it easy هذا صباح دي أرد سكول كجسنا يوم حصل مشكول سنة that's how I do and I hope إنا أحبذني إلى فانتين وعركنا وإنه فيديو صوصعه وبلا توفيق.